السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شانكو سببها وينكو إنو كحنتودو أي سوبحي ويدو هوينكو أي دالي وايان بين إن شاء الله موقعنا كسو قادنينا هوينكا شانتنا ريمودة كو سببا إنو كحنتو سوبحي ويدو أما جوجيا وحكوكا haweeneyda oo gasha two estrogen deficiencies oo waliba xaaladiisu ay aad iyo aad baaba u noqoto hormoonka la yiraahdo estrogenka haweenku u saamaxa dadigooshaha dareenka iyo taranka inuu ku yaraado ama ay weydaba hadii hormoonka haweeneydu ay weydo ugxantii ma imanayso taasina waxa keentay inay haweeneydu ay dhali weydo marxaladda labaad ee kale iyaguna keentay ugxantu inay soo bixi weydo waa ugxansidayaasha oo tumor cancer ay ku samaysanto goobta ugxanta lagu diyaariyo ee laga soo saaro ee la yiraahdo ugxansidayaasha hadii markaas uu cad ku beermo oo uu ku abuurmana iyadana ma suura galaysa ugxantii in goobta lagu diyaariyo marxaladda saddexaad ee keenta haweeneydu in markaa ugxanteedu ay soo bixi weydo waxa kamid ah haweeneydu inay gaadho marxalad la yiraahdo menopause oo bulshadeenu ay u taqaano marxaladda caado goyska marxaladda caado goyska hadii ay gaadho haweeneyda da'deeda iyo age-keedu ay korto oo markaas ay daahan weynaatana marxaladda caado goyska ay gaadho caadadu ay ka tagtana ugxantii sidaas ay ku dhamaatay oo markaa ugxan soo baxaysa oo dambe ma jirto oo uur qaadaysa haweeneyda ku qaadaysa marxaladda afraad ee keenta in markaa haweenku ay ugxanta ay waayaan waxa kamid ah dawooyinka gaar ahaan dawooyinka afka laga qaatay kala koriyayaasha la yiraahdo ama uurka ka hortaga oo haweeneydu afka ay ka qaadato dawooyinka uurka ka hortaga ay bay leeyihiin kuwa afka laga qaatay bay leeyihiin kuwa siyaabo kala duwan loo isticmaalo bay leeyihiin laakiin dawooyinka afka laga qaatay uurka laga hortaga haweeneydu ay qaadato iyaduna waxa ay keenaan dawooyinkaasi inay ugxanta ay la dagaalamaan ugxantana marka ay ku sameeyaan inay ugxantii ay caabin ku abuuraan oo ay soo bixi weydo marxaladda shanaad ee runtii ugu dambaysa waxa weeyaan ku keenta haweenka inay ugxantu ay ka soo bixi weydo waa inuu markaas hormonal disorders ay jiraan hormoonadii dadigooshaha iyo dumarnimada u qaabilsana oo khalkhala oo waliba khalkhalkoodu muddo dheer uu socdo oo hore loo daweyn waayo oo markasta waxaynu niri early treatmentigu ama xilli hore oo la daweeyo haweenka iyo qof kasto de xanuunsanayaba markasta oo marxalad ay soo korodho xilli hore la daweeyo xalkeedu u fududaada laakiin hadii haweeneyda muddo dheer hormoonadu ay ka khalkhaleen ay ka khalkhalsanaayeen waxay ku keenaysaa marka dambe in la sameyn waayo ugxantii sidaana ugxantii ay ku soo bixi weydo sidaana haweeneyda ay ku dhali weydo oo markaas sida haweeneyda ay ku noqoto mid markaas aan ugxan helayn oo aan dhalayn shanta arrimood ayaa loo sababeeyaa inay haweenku gabi ahaanba ay ugxantu uga iman weydo oo runtii inta dhakhaatiirtu ilaa hadda ay qaybta ugu sarreysa ay ku highlight gareeyaan ee ay ku qoraan shantaas ayay soo qaataan intaasaan kusoo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.